أنا ما حد نغيا إلهي وحما حد نقل لباد له قولها قورتي ده oo kan isagu sharcigan labada doorasho oo ay laba doorasho si kharash u yaraado golihii lahaa in laba doorasho la isa saaro oo maanta aan dhex fadhiyo inaan mahadnaqa labaad siiyo mahadnaqa saddexaad waxaan siinayaa madaxweynaha oo isaguna dhaqaalihii labada doorasho lagu qaban lahaa reer nebi aadan inuu ka maarmo ku tashaday waxaan u mahadnaqayaa saxaafadda oo ahaa nimanka wacyigelinta nabadgelyada roorka ugu weyn ka qaatay waxaan u mahadnaqayaa ciidamada booliska iyo shaqaalihii 32 kun ahaa kuwii xuduudaha joogay baan si gaar ah ugu mahadnaqayaa oo ay ka mid ahaayeen ciidamada qaranka oo daadsanaa ilaa Qardho ilaa Garowe meesha la yiraahdo waxaan u mahadnaqayaa shaqaalihii komishanka oo iyaguna doorashada oo kaliya oo komishankan u mahadnaqayaa oo waday laba arrimood oo mid doorashada shaqadeedii iyo mid dhalinyarada isdhexgalkoodii waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa inamadii galbeed ka tagay ee gobolada bari daadsanaa ee sida gobonnimada leh uga shaqeeyay waxaan u mahadnaqayaa kuwii daraawiishta ahaa ee hooyooyinkoodii aabbayaashood odhan jireen waa laydinku cunayaa Somaliland haddaad tagtaan ee jaamacadaha ka baxay dowladda Somaliland laascaanood ka dhistay ee Hargeysa ka ahaa komishineerada ugu dambeyntii waxaan u mahadnaqayaa nimankii reer nebi aadan ee ay special waxaan u mahadnaqayaa kuwii midowga ka yimi UK iyo South Africa iyo Africa oo ay hogaaminayeen kuwa midowga Yurubna waxa hogaaminayay UK kuwa South Africana waxa hogaaminayay South Africa waxaan ka marxaati kacaya oo halkan aanu laba goor oo aan South Africa tagnay wafuudda ku jiray kuwii aan golaheennani tababarka intay ugu tageen iyagii tababaray oo ay ka mid tahay muujidii South Africa iyo jaamacaddii UNISA iyo Iqbaal inta haddaan ka baxo waxa weeyaan doorashadii ugu wanaagsanayd ayaa dalka ka dhacday ilaahay baa mahadnaq waxaan ku noqonayaa dildilaaca doorashooyinku dildilaac bay leeyihiin dildilaacana miidiyaha lagama sheego waayo waxaa leeyihin nin weyn iyo naaga ka umulisay midna sidii wuxuu ogyahay waxma sheego maanta saxaafaddii bay nala joogtaa wixii dildilaacina gaadhay si hooseyna u dhayan doono maaha in layna maqlo waxa laynaga sugayaa gudbe waxa laynaga sugayaa guddoomiye iyo mudanaya labadii dawladood ee midna baraska inoo yimi ugu afdheeraa oo Kenya iyo South Africa waxay labadiiba soo saareen iyagoo midna Afrika metelaya kii Yurubna UK metelayso laba ribood labadii ribood waxay idiin hayaa anagu guddi ahaan waxaan qabanay inaanu riboodada ay soo saaraan idiin ururo iyo inaanu message-kii golaha gaarsiino goobaha ay joogaan aanu aniga iyo especially guddidayda taliyahoodii aanu intaa qaban Cabdinaasir baa idiin haya warbixintii waad ka qaadan doontaan waxa laynaga sheegay arki doontaan sida gaar ah golaheena looga hadlayo arki doontaan sida madaxweynaha iyo ummadda Soomaaliland wanaagay sameeyay looga hadlayo arki doontaan waxa laynaga sugayaan haddaba gol ahaan noo sheegay idiin sheegay oo warbixintana idinku qoro waxa laynaga sugayaa maanta ma aha inaga doorashadeena maxaynu baranay inagu adduunka maxaynu barnaa weey ayaa laynaga sugayaa waxa laynaga sugayaa sidii aynu doorashooyinkeena u qabsanay in aynu Afrika iyo wadamada colaadu saameeyeen aynu u tababari lahayn waxa iyaguna garab socota
casumado badan oo gudana guddoomiye la taliyihii uu ku keeni doono maanta uu naga habsaamay oo ka yimi UK iyo Afrikaba sidii golaha u bixi lahaa waxa kuu taalla adiga gaar ahaan marka casumadahaasi ku yimaadaan inaad ka jawaabto oo imaantinkooda iyo sidii loo tegi lahaa waa ku imanayaan berritooda ku keenaysaa inantii inala talinaysay aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay halkan inuu ka soo baxo ninka barkhad layidhaa oo warbixinta ku jira raggale maanta laandheeraan ahay ninkaasaa inoogu laandheeraysan Soomaaliya ninowna ha filanin laandheere jirta weli wuxuu isu haystaa laangaad waradaa George calaacad maanta nin golaha kaa laandheeraysan ma jiro waxaan ugu mahadnaqayaa shacbiga Somaliland sida ay especially gobolka Maroodi Jeex la yiraahdo gobolka Maroodi Jeex la yiraahdo isna oo qaatay xildhibaanka soo saaristiisa isaga waxa laga rabaa dardaaran baan u diray waxa laga rabaa maaha inta uu ka soo jeedo ee cabatinka jeedin jirtay inuu cabatinkii la wado waxa laga doonayaa inta faraha badan leh inuu ka daweeyo maskaxda inta ka badan guddoomiye waan dhammaynoo ka baxayaa inuu intaa daweeyo ka daweeyo guurka lale ee la isguursan maayo aad baa u mahadsantahay